بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض عافماتك هذه بان سلامية وأنا كفر أحسن أنا كسوق بين شركينا وايو شرارك قار وحاري ماذا إن أنا قوانك كرسوه وحكى فائديسته وأنا باهنا هو شيء قبطان مركب ما أنت 10 كيلو كوبات أيها كفائديستي وإذا ما أنت إنه شيء مشاهد أدنى وأتلي لذا كان هقاطته waxaan xoojinayaa abiilka ay u direysay WHO iyo caalamka iyo hay'adaha la joogaba oo aan ku taageerayaa inay hawlaha iyo haweenka Soomaaliland lamdihiin kuwa adduunka oo xaq u leeyihiin in laga daweeyo oo laga hortago labada cudur ay sheegtay gaar ahaan kansarka fayraska ah oo caalamku naga caawiyo si loo hortago waa taageerayaa waan codsanayaa كلامنا فقد رأى هذا بربر لنا هاي إنقولوا بركين كسب حنا أي نار أوران هواي كنا نوع قوضي عالمكم وإحنا قاعد شيء دول كذا الماء عادي هاي وين نقول عب ده نهبط السمالة إن هواي كانوا قاعد شو ينا فقد رأى الماء عادي هاي كنا الآن عيبنا دوك الله وقصة وأحلى عام سلاوي وأنا عيبنا وصار عندنا قرق السمالة وأنا كاذب دون أيضا أنت هو حنكون فيها taageerada aan raaciyay adna labada mawduuc ee maanta ka faa'iiday marka taga jaamacadaha meelaha waxbarashada caafimaadka oo kale maalin walba waxaan ka qaataa waxoogaa cashara oo qaranka u dana waxaan ka mid yahay hay'adaha ka shaqeeya nolosha dadka iyo horumarkooda casharkan aan ka faa'iiday oo wasiirka caafimaadku halka ka yiri oo doonaya isaga inuu ka faa'iideysano wasiirku wuxuu yiri waxaan qabanayna shir waxa laga hadlayaa medical ethics akhlaaqda way naga xumaatay dhakhtaradii halkan marka way laga tawan ka yarnahay waayo dhakhaatiirta iyo aqoonyahankii waa meeshii akhlaaqda iyo ethics loo sii dooranayay marka haddii iyaga laga deeriyo wallahi xaalkeedu waa baralka aad halay nooga geejiyo idinkana waa ku ceeb in la yiraahdo dhakhaatiirtii iyo macallimiintii ba eegas la barayaa iyo jaamacadihii waxaan islahaa markuu ethics ka soo qaaday إن فرصة تاجر دون كل وزير قال الله يلا السياسية حزبية وفر مركل إفكس عافنا إفكس بعض يلا السياسة ده ميكروفون كلا وفري بعض إفكس ميكروفون كبرو قف كان أنتو تلفون ميكروفون كقاطع بعض كان موبايل كان يسكت صوره وحوله لقى حشاله ورقم جديده ودين تدويده وعقل جديد تقهله هبين كنت مراد كذا والله كفر حيلا ما أركيس وحنسبيه هذا هو عيب تدوك ورد مسلمي ورقلنا إذا ما أباهن إثقس كه قولي كنا شاب الله يملك الكيوت واقف توي صار بلو شو قول ماذا ووحي أشياء سيرية بالغير دوية يلا هيدين الباب كدور الشير ملا فراه بلني كان أنتو عي يفول حول يوحنا قرانكم هذا استعوذ كفر حسن محل ملا نسان مركب حول قني عذر هذا شيء يصير الله نوسع بعض يظهر هذاك يسي أصلا قابل سنة بلني قور هيا هذا إثقس كبار صار أنت كذب waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa bahda caafimaadka dhammaantiinba shirkan in ay isku timaadeen idinkoo xirfado kala duwan ganacsi iyo dad maartay private business iyo wasaaraddii inaad u gurbateen hawshiina aad caafimaadka u haysaan isugu timaadeen oo ka tashanaysaan sidee ummadiina loo daweeyaa sidee loo daryeelaa aad iyo aad baan idinku hambaleynayaa waan idinku garab galaynaa waan ku faraxsannahay waan idinku dhiirinayaa waxaa kaloo doonayaa inaan idiin qiro adna uur maahe ilaa inanta maanta baranaysaa kalkaalisada ama umulisada ama inanka baranaya kalkaale caafimaad ama first aidka inaad dhammaantiin hadday cid mujaahid tahay ama mujaahidiintiin qof waloo caafimaad bartay mujaahid waa carabi eraygu wuxuu ka mid jaahada fi sabiilillah iyo jaahada fi maartay adduunkaba بركتر إلى هذا العالم سوى أمضى يدين يقفك يدلك ورثوا ضيالة بس مركا هذا يتهاود ضيالة بسوا قفك استوى نختار أدونك هل كدورة كتشوه دلك كدورة هتشوه دين تدورة هايستو وها قبل يا ضيالة يا بين آد بجوراجي ساعات ما تكسور بركيس مركا حق بوري ما يعكسوا سر إلى سياق قفك عارفات كش غيا إيه كمعلم كذا والله ما هو اسمع عليه واي وام ذي
hambalyadaa kadib oo idinku maanta xafladda u leedihiin waxaan soo dhoweynayaa dhammaan martisharafta ka timid hay-adaha dalka ka shaqeeya gaar ahaan martisharafta ka timid dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa sida wanaagsan ee aynu u wada shaqayno jaarnimada waxaan ku faraxsanahay oon ku qadarinayaa dowlad deegaanka soomaalida aynu jaarka nahay inay nabadda inagala shaqeeyaan oy horumarka inagala shaqeeyaan oy caafimaadka inagala shaqeeyaan oy si bini-aadnimo oo dhow oo walaaltinimo inoo shaqeeyaan aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa taasaanaynu ku horumaraynaa annagana intaa in leeg baa naga filanaysaa shacab iyo xukuumadba walaaltinimo nabad iskaashi wada shaqayn shar oo dhanna aynu ka wada hortagno khayr oo dhanna soo wada dhoweyno sidoo kale jaarkeenna oo dhan dhinac walba intaa kadib hambaryada iyo soo dhoweynta dee malaa aniga iga filmaysaa inaan caafimaad ka warrabo oon sheego caafimaadka iyo dhakhtareed dee idinka idiin sheegi maayo laakiin tu kale aan idiin sheego u baahantihiin oona wada baahannahay dadka mutacalimiinta ah ee aada cilmiga u barta macallimiinta dhakhtarada injineerada abwaanada artis soo qaad dadka aada u fikiro dhamme hal aan isleeyahay malaha sax maaha bay qaataa intaa waktigiisa wuxuu ku imanaya bini aadamka horumarkiisa had iyo habeen wuu shaqaynaya nin baanu kabtananu saaxiib noo dhakhtara iga yar weyn laakiin aanu aad wada isnaqaano markaa waxaanu isku qabsanay labadeeda shaqo dadkuna markay eegayaan labadiiba dee xuntii bay dhirtaan oo labadiina waa cadho badan tiri waxbay nagu sheegaanoo laakiin anaa isaga yar dhaama dhakhtar ismaaciil baa la idhaha lafuhu kabaa mala waa taqaaniin inuu joogay kala mooyaane tu kale nagu xantaanoo labadiinoo geel jiraa tiraad anu geel isaga waan ku dhaama isaga anugu waan keerkay magaalsana waxogay marka waxaan isku qabsanay siyaasaddu waa wax xun war nagala tag hanoola imanna waxaad kustaa waa maxay anna waxaan ku idhaahdaa horta dhakhtar haddii siyaasadda la waayo oo tale la waayo dadku ma jiraya haddii caafimaad la waayo yaa dadku miyuu jirayaa maya haddii tale la waayo ka warramo haddii tale la waayo dhakhtarkii la heli maayo oo macallinkii la heli maayo oo nabaddii la heli maayo oo horumar iska daayo qof meelu seexda heli maayo meeluu ku tukado haddii tale la waayo siyaasadduna waa taladii markaa dhakhtarradu rag iyo hablaba markay joogaan ay dhahdaa inaga daaya siyaasadda maxaa la sheegaya dhakhtarrada haddii tale la waayo siyaasadda la waayo hawshiinu cidlay ku dhacaysa waxaad tidhahdaan markaa ku qoraysaan boorka qof waloo dhakhtaraba jaamacad college farmasi dhakhtar caafimaad waxay ahayd health policy maxaa policy u qaadaysa marka dhakhtarka mar ayadka qaranka u diidaysaa ay uga baxsanaysaa policy waa dhakhtarka hawshii caafimaadka isku qabanaysa tii qarankanu ka wada hadlaynaa marka waxoogaa waqti yar baan kaga qaadayaa amba tiina waa dhegeysta hadda taadin haystiidsiinida dalku maanta waa nabad ilaahay mahadii sanadkana roob badan buu ahaa nabad badan waa degan yahay 30 sano Soomaaliland maraysa dheeraad muruqeeda adkaaday cadawgeeda waa ka adag tahay warwar ma qabto cid ilaahay boo ibn aadam oo waxyeelay kalaam wixii qaadi kara cadawgeedana maanta warwar kama qabto way jir dhigaysaa gudaheedana waa isticmaashahay gudaheedana waa dal midaysan dimuqraadiya tala wadaag leh laakiin dadka qaarkii murankeena markay arkaan ay yiraahdaan waa meel xun Soomaaliland hal ceeb bay leedahay oo aanay af Soomaali dadka ku hadla ay kaga duwantii markay TV-da ka hadlayso ayaa la moodaa af aan dad haysan u miir qabin ay hadlayaan laakiin marka la eego wax qabadkeena inta Soomaali dhigta inaga ugu wanaagsan iskaashana wax wada cuna kala caroonin tala midaysan la murankeenu ha xumaado iyo hadalkeena marka magaalaha muqdal gaar ka ah dalka maanta dad badan baa waxay ka deereeyeen hadda wax baas ka sheega horta dawladda waxaan u samaysanay ee caalamku dawladaha u samaystay ee dawladda looga maarmi waayay waa inay mashaakilka xallido mashaakilka inay xallisaa dawladda loo samaystay gabigeedaba oo looga maarmi waayay oo siyaasadda oo yiri oo xisbiya loo furtay oo baarlamaan loo sameeyay oo madaxweyne loo sameeyay oo wasiir loo samaystay caalamka oo dhan ka baysan dal waliba maalin kasta waxa jira mashaakil la xallinayo dalka iska dhaaf inteena guriyeen ku soo toosnay qoys caruur aabba hooyo walaal qoyska laftiisa aroorba buu ka jira hooyadii inanteeda ugu yar oo maxad quraacdu loo daahday baa la isku laayaa buu ka dhacaa
dalka oo dhanna markaa mar walba wax jirta mashkilad xalinaya way ilaahay bas adduunka u abuuray sharkii khayrkaas ka rabsado markaa waa in aan la diidin haddii aad maqasho halka hawl baa laga hayay qof qaloocan baa jira koox qaloocan baa jiri karta cid baa sharciga jabinaysa mid baa shar wada dawladda u xilsaaran waxa ay qabato waxa kale dawladdu u xilsaaran tahay si sharka loo yareeyo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo dhaqaale loo doono oo caafimaad loo doono oo tacliin loo doono si ay u yaraato dhibaatadu markaa dawladda fadhuma yaala 24 saacadood ee maalin walba waxay ku fogantahay hawsha markaan soo dhawaado geeskan Afrika maanta aynu ku noolahay bal amuurta ilaahay caalamkii oo dhan baa isku yimid oo wada danaynaya oo wada doonaya dawladii waaweynaa Mareykan China Ruush Turki Iran maxaan ku raasay Saudi ninkii ama dhaqaale ama xoog ama cilmi isku tuuray geeska Afrika ku soo jeeda imaka uur maaha waa warigeed yaa leeyahay markii isticmaalku dalka boobay meeshii loogu soo horeeyay ee adduunka oo isku hirdiray geeska Afrika baahan waayo ilaahay wuxuu ku abuuray halkan oo inagu abuuray ka dhigay juqraafi aan meelaha adduunka ugu muhiimsan baddaacas waxa la sheegaa inay sanadkii maraan in ka badan 700 oo bilyan bucsharo qiimaheedu tahay oo Yurub iyo kala socoto bariga Aasiya marka dal kasta ilaa Mareykan ilaa China way saamaysaa meesha aynu deganahay noloshooda iyo dhaqaalooda waxa ku soo biiray dhaqaalaha dadku ay daafacanayeen ugu yimaadeen laba qodob oo kale geeska Afrika oo badiisa iyo barigiisaba inta geeska Afrika isku dhahdo barwaaqo badan laga daawanayo hadday tahay macdan hadday tahay shidaal hadday tahay badda oo dawlad wala xoog leh ama cilmi leh ama dhaqaale waliba ay doonayso inay wax ka hesho farsamo ka saakeenta waxa kale oo muhiim oo adduunka maanta waxa soo diyaarada iyo waxa soo maraakiiba iyo waxa soo dhaqaalaha nin waliba u ordayaana waxa weeye geeska Afrika nin waliba wuxuu ka doonayaa inuu amnigiisa ka ilaashado waayo in alliya inta la sheego xaq jir ama laga baqo ama colaad ka jiraana geeska Afrika ka jira nasiib darro iyadoo intaas oo barwaaqaale waxay noqotay geeska Afrika boqolkii sano u dambeeyay meelaha ugu dhib badan ee colaadu ka degi waayeen maanta hareeraheenna bal yama waxa ka dhacay waxay noqotay 300 kilomitir waxaan ahayn 200 kilomitir bal Soomaaliya eeg waxa ka dhacay waa jaarkeena waa isu furanahay dhibaatada inta leeg ma ka socota mar walba cid kasta si kasta ku baadiyay waxa ka oogan xasarad marka qolo waliba waxay isleedahay xasaradeedana iska ilaali loolanka caalamiga ee maraya dawladaha ku jira geeska Afrika oo fara badan oo dhamaantood taag daran waana midna xoog maanta adduunka ay korshtaan lahayn waxa ka noolaan kara oo ka nolosha mustaqbalkiisa kala dhex dabaalan kara ciidda isku tashata midaysan garanaysa si mawjadaha socda iyo adduunka dhan isla socda halku dantiisa ka baarhay ka bixi lahaa qofkii dawladii isku tashata taladeeda midaysata khilaafkeeda hoosana yaraysa keeda guudna samaysa ayaa ka dabaalan kara ubadkoodana mustaqbal u dhigi karta sanadaha soo socda halbeega Soomaaliland halkee ka joogta ilaahay mahadi waxaan qabaa inaan meel aad iyo aad u wacan ka joogno ma ihi dadka mutashaayimka ah ee rajada xun ee waxa ay waxa seenahay u fiirsa hareeraheen oo dhan Djibouti Soomaaliya Ethiopia intaba waa la ictiraafsay intaba waa la taageera intaba baanka adduunka wax ka mahadaan intaba waa la garab taagay Soomaaliland sodon sano ilaahay mooyee cidina ma ictiraafsana cidina wax ugu ogola waliba cadow xoog oo la dagaalamay hadana بفضل الله وحمده إلهي يوم دي سوام مدرسان يتشجعنا أي أن كتاجر النور بس كجنا وحركة Soomaaliya gaar soo qaadaya laba dawlad baan wahayn lixankii midoobay ay ka duntay midnimada isdilay midba gaarkeeda u dhaqaaqday wax gaar ah u dhisatay 30 sanadood waa la ictiraafa sanadkii u dambeeyay Mareykanka oo quriye 140 milyan busi iska dhaaf jimcada qurbo ka dhaxaysa iska dhaaf Turkiga oo caafimaad iyo dhismo iyo wado iyo ciidan u dhiso ciidanka ugu dhisay sida ay tahay haddana maanta bal hadda eeg
waxaas oo iyadoo la geliyay oo intaas oo garab haysata oo si walba loo taageeray maanta Kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dawladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalin walba way xidhaa waad arkaysaa halka la isla maraya iyo qarax ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda Puntland baa u soo wata maanta la qarxiyay waxaana wadada dawladda farmaajo ee waxa soo taageerayay ayaa fidmadaas oo dhan wada oo markay intaas oo dhan ka dagaalamayay waxay ka wadaa waxa soo tababar kuwa ku soo tababaraysa oo ku soo diyaar garoobaysa Soomaaliland bay soo diyaartaa colaadeeda oo ay ku soo maqantaa Soomaalilandna waa ku gaamurtay inay cadawga iska celiso diyaar baanuna waa aragnaa waxa soo wada farmaajo gudaheena dimuqraadi baan nahay xisbiyeen nahay muranka ugu jireeya dawladdu way jiraysaa laakiin waxaynu u baahanahay inuu iska waarino waxa la yiraahdo wargartaada sheego oo turxaan la'aan sheego marka anigu madaxweynaha ahay qaranka u dhaxeeya tilma ee dardaaranka qura bixinaya waxa weeye aanu doodno sharciga isku qabsanno dantaan isku qabsanno laakiin doodaada iyo murankaaga turxaan la'aan ee la'aan sheego si gobonimo waashi maalmahan waxa maqlaysaa waxan badan oo xisbiga ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharciga baa la jabiyay raaci mayna go'aanka baarlamaanka soo baxay gartii waa sharciga laga booday madaxweynaha marorsaday gartaa ma ugurin waa caadi qofku hadduu wax toodo inuu sheegto laba qodob bay sheegtay mid waxay yiraahdeen komishanka cusub ee doctor shaqeynayna waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyay heshiiska xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiin haddii qodobka ugu dooda waxay yiraahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa daba laga dhigin haddii qodobkaas oo qoraal ay hayaan oo lagu heshiiyay anigu mana saxiix qodobka mana ugu kumanina heshiinine oo ma jiraan leeyahay haddii hayaan ummadda hoos soo badhigeen inaan qodobka ku heshiiyay anaga ka daran haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee wax wanaagsan ummadda markaa doonaysa wax xun u sheeg qodobka lagu heshiiyay waxa lagu heshiiyay in la soo doorto 7 xubnood cusub sababta loogu dari waayo kuwa hore ayaa lagu soo celinaa waa sharci aanan dhaaf karin haddaan xisbiyada nahay ayaa yaala xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqradda 4aad waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sanadood waana loo cusboonaysiin karaa marka waqtigu ka dhamaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxay waxa saxay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga qaranka wadani gudoomiyaheenii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan gudida guurtida waa ixtiraamayna saxiixiisa waa la raacaya isagaa saxay mudane gudoomiye cabdiraxmaan ummadda u soo bandhig labada qodob haddii wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la'aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahwareeriyay baxa qodobka waa baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xubinta annagaa diidan haddaan u darinahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorashada geli mayno waxa daba socotoo lagu eedeeyey madaxweynuhu taladu murarsadaa waa kalitalis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddana labada qodob isu keeneen sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka 12aad waxay ahayd laba waxa soo jeedinaya guurtida mid waxa soo jeedinaya xisbiga wadani midna wicid saddexna madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuweedii midna arrintiisa ku faragelin xisbiga wadani ku keenay waan gudbiyay wicid ku keenay waan gudbiyay guurta labadoodina waan gudbiyay saddexdii aniga ayran qotana waan ku daray waxa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oo ama u bareero anoo dantay riixanaya ama bini'aadam qaldamo waxa iga dambeeya laba isbaaro gudida hoose baarlamaanka iyo gulaweynaha baarlamaanka oo 28 qof waa la gudbiyay intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaasi qalad tahay gudidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankiina wuu codeeyey yeeri maynu wadani yidhi dictaatoriyadda ka weyn baarlamaanka yeeri maayo xagga lagu arkay dee cabdiraxmaan yaa ka filayay inuu wanaagsan oo shibil ahay qodan jihaadiya taa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo gudoomiyey baarlamaanka ugu weynaa saxaxada ee dalka 10 sano sharciga u saxeexay adoo gudoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurto sharafeed oo milkiye maamus ku leh
dee arrintaa ka fiirsan yeeli maayo baarlamaanku waa arrin adag war bar idina ka garanaysa shicib weynu anagu baarlamaanku wuxuu waa ogola hadduu kaaga soo celiyo waa ogola labada qodob garta ayaan cadeynayay oo midii hadda ka cadeynayay wixii ka soo noqdana waynu arki doonaa waxaan leeyahay aynu shuruuciisa u raacno aynu isku ixtiraamno markaynu doodayno cayda nin walu yahay da walu yahay ba in laga sii daayo midiyaha dhaqan goobnimo ma dhaqankeena muu ahay dhaqan la daawado ugu farxan maaha in la iscaado wax badan baynu sunahay haddaynu ku dayna gaalada dimuqraadiyadda Mareykanka haddaynu raacnayo waxa la midka ah Ingiriiska iyo dee waa ku jabayna dee iyagu dimuqraadiyaddu waxay gaadhay inay taa laba nin hays guursadeen haddaynu tooda ku dayna halkaas in la gelaysaa bar hadda loo fiirsado waa dimuqraadiyo waxa doonaan sameynaya war dib loo fiirsado dadka raacay dhalinyarada wariba taalantaasaan kale yahay waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland door wari maayo dawladda xamar ka dhisan oo aad u tihiin inta weerar nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekada barbara mashruuciyo risada dekada laga bilaabay waxa isu taagtay dawladda Ciraaqaadka carabta u jaraynaa meel bay ka dacweysay waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa loo oran jiray Special Fund for Somaliland oo European-ku isugu tageen oo Somaliland mashaariicda laga caawinayo laga siin jiray baaburan jirtay warqad bay qoreen anaga la ixtiraafsan yahay oo waa gobol laga mid ah cunaha la qabanaya hadeen diidaanaha gudbinina waxa ku xigtay ECAW isku dayaan diyaaradaha halka soo maray waxa kamid ah dawladda Somaliland soo dhaweysay ama marti qaadaan cilaaqaadka la jiloonayaa war waxa xuna gacanta ugu jira meega geebay la soo dhaweysay oo soo dhaweysay waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen Somaliland gudaheeda ay hada sidee u degtaan meel Somaliland kamid waxa wax laga naxaa in xisbiga wadani rag kamid ah amaanahan isla taagaan oo kula dhacaan xamar maanta warbato waxa sameeyay amaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaar garow cadiga koobaad ee weerta ba waxaynu kaga dayanaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xiraayay airport ee maanta xamar ay ka gubaysay isagoo oo xukuumin meesha la yiraahdo fila Soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne igu xigay xataa dhaqan Soomaaliyeed ma haska dhaaf siyaasadda ka gaalada miyir ku taasayna maanu raacnaa waxay la tahay meelaha qaar kood aan hubsano oo ayna ku dhicin cadawgeena dawladkiisa aan ka digtiraano waxaan ka rajaynayaa ku daaraya aqoonyahanka jaamacadaha dhakhaatiirta injineerada abwaanada dadka maskaxda fikirka badan lahow talada dalka ka qayb qaata haddii kala tacabkiiru khasaar noqonaya taas waa ku baran Soomaaliland waxaan ku hambalyeeyaa ganacsigeeda madax dhaqameedkeeda culimadeeda ardaygeeda haweenkeeda reer miyigeeda kabada ka karumaysta midnimada iyo difaaca iyo adkaysiga gobonimadooda iyo qarannimadooda sida aadna ay naftooda u horayaan ayaan aad ugu hambalyeeyaa Soomaaliland ha noolaato midnimo iyo horumar baan ku rajaynayaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.